السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان انتنو igu jirto walaalahayga YouTube-ka waxaan leeyahay soo dhawaad mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ah Caasho Ladan iyo anigoo ah Firdawsi Ismaaciil waxaan dileenahay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada walaalahayga insha Allah like-ta iloobina iyo share-ta gambaleelkana furta si aad برنامج عصب إن شاء الله مركز سوق لنا بالسعودين عندنا على السعود waxaan ka hadlayaa caawo sheekadii ahayd saaxiibka wadankan iyo saaxiibkii back home waxa u dhaxay different ama wadankeeni si aad u garanaysiin iyo inta wadamada kale oo magaciisa muslimka ku nool maxaa different u dhaxay wadankan marka imaanay aan ku aragnay iyo maxaa magaciisa dadkii back home aad saaxiib aad kula aheedeen iyo inta aad ku baratay aad saaxiib kula noqotay different u dhaxay maxay tahay ayaan ka hadlaynaa walaalahayga haddana waxaan wareysanaa walaashay haddana bartatuubi waa waxaan hadda ka wareysanayo marka abaayo waxa u dhaxay saaxiibka wadankan iyo saaxiibkii back home ama Africa saad u kasiisid wadan magaciisa different u dhaxay ayaan ka wareysanayaa cawad يا في عن يانا ونافسن يانا مقعس داعدة كانت أشياء أبيك وقصارتها أبيك وقوي هرت الداعدني ماذا ما عرفت قفل بواسدي لها ودلية لكن واحد شرط ما تقانا يعني هي ودمنا قربها مركلي مدي أدبر لي سؤالك meel aan cidna walaal ku joogin waxba ku joogin qof walba wuxuu yahay kaliya ordayo marka waxaan maqli jiray maalinta qiyaamo ma aragtay qof walba wuxuu leeyahay nafsi qurbahan hadda waa sidaas nafsi qof walba leeyahay waa gartay qof walba waxaan ku iri waxaad la yaabis anigu hadda waxaan arkay laba saaxiib ahaa oo xaasidnimo intay dhex martay mid la dilay ay gabadh inta ka xumaatay ay dishayba gabadhii saaxiibteeda ahayd wayba dishayba story jira waayaan oo sheeko dhacday weyn oo run ah waa gartay markaa saaxiibtinimo walaa aniga haddaan saa u fiiriyey dad badan oo fiican way jiraan laakiin saaxiibtinimada sanadadan jirta ma aragtay mid aad u liidata weeyaan welibana qurbaha tan loogu yimiday aad baa dadkiisaga dhib badan yihiin diintii baa iska yaraatay iimaankii baa yaraaday qofkii way dumarkii horta especially dumar waxay noqdeen diintii ku yaraatay alla ka cabsigii ku yaraaday hadiiba la soo dhoofay waxaad moodaa in alla ka cabsigii laga soo dhoofay dhibkeeda horta leedahay talabaad ariga only Soomaali kale kama hadlaay dad badan oo ajnabi ayaan wareystay wadankan markaan weydiiyay waxaan ku dhahay saaxiibkii back home iyo saaxiibka wadankan maxaa u dhaxay different حتى هو أجنبي مركان وريست وحي يقول هن توتال isku mid ma ahan maxaa keenay markaan dhahay special waxa wadankan dadka joogo saaxiibada ah waxayna u badan yihiin danayst وانا كل بعد نفسي بقف والبليه قف والبعاش نفسي markaas qofka alla saaxiibeysa inaad ku danaysato ha u saaxiib hal u noqon asagan inuu kugu danaysato inaad inuu saaxiib kula noqdo ma aha markastaba horta waa inaad laba qof oo isfahantay oo saaxiibo ah isku xiran daacad ah in la helo fiicnida lagu helaya adagoo wadankan walba soo gubto qof baa soo khiyaamay oo ku soo danaystay wixii baa la soo baray qof kasta qofkii kale ula tagaya marka aad baa u ag tahay ana waxaan dhihi lahaa mataqaanaa gabdhaha reeraha le horta odayaashiina iyo ilmihiina la saaxiiba waa gartay والله بالله انت ناك حاسد oo ku qiyaanayso oo ka daba shaqeynayso ama gadaasha ka tooganayso inta la socon leed horta waxa ku fiican in adiga guriga familkaaga aad ku dhex jirto waa runta mid kale waa laga yaabaa qof dheef boqolkiiba hal baa hadda laga helaa boqolkiiba hal baa laga helaa laba qof oo saaxiibo ah oo daacad saaxiibo ah oo qof walba qofka kale wanaagiisa ka talinayo way yartahay anigu aad boqolkiiba hal baa lagu arkaya nimada waa laga fiican yahay dadka haday saaxiibo yihiin ama walaal yihiin walaalnimada wax ka wanaagsan hadda danaysigaas ka batay danaysi inaad adiga qof bini aad aan ku danaysatid daraadeed qof ha ula saaxiibin
ha ula saaxiibin qofkan beri magaciisa intaad dantaada ka gaarayso wado berin isbedel laba weji ma fiicno waa inaa qofka bini-aadamka hal weji lagu bartaa ma kaste adiga maxaa la kulantay ma adaa dad la kulantay oo micnaha salfishnimadaas ku dhaqmay maad aragtay ama waa lagaaga sheekeeyey ama dad oo lagu sameeya kaala hadlay waxaan ku weydiinaya taas waa ani dad badan oo lagu sameeyaan caadi u arkay reality u arkay waa la kulantay haa waan arkay dad badan baan la kulmay oo lagu sameeyey oo halkan waxay dhahaan qofkaas uu yuusgareeyey marka waxay noqonaysaa marka dambe qofka bini-aadamka inuu oo luusgareeyo oo dadka dhan uu ka cararo laba mid bay markaa dadku noqdaan inuu noqdo qofku qof dadka dhanba shaki ka qaba iyo inuu isagu laga badi noqdo dadkii kala badiyaba adna selfishnimada aad baratay oo qof kasta sida intuuna adigu kula gaadhin la gaadh adigu qof walba isagaa kii kale kasii darayaba marka dadka waxay u bateenba qof soo dhibaya waa la soo dhibay dhibkiibuu soo arkay marka dambe wuxuu isleeyahay intan adi lagugu sameynin ka horgaarsii ka horgeeya qofkan taasna ma aamin maba jirto maya taasna waa laga fiican yahay because dadka bini-aadamka hadduu xun maya wax fiican ma magacaasho qofka fiicnaan karta midaan kuu sheegay ma fiicno abaayo laakiin midaan kuu sheegaya ma fiicno qofka bini-aadamka inaad magaciisa qofka hadduu dhibaato kuu geysta mid fiicanna way ku jiraan dad xunna waa ku jiraan dad fiicanna way ku jiraan markasta waa run markasta waa inaad ogaataa hadduu qof xun yahay qof inuu fiicnaada laga yaaba laakiin ayaga dhan hadday dadkii wadankan ugu imaan waxay u badan yihiin nus boqolkiiba haadkiisa waxay u badnaadeen magaciisa inay dadka ku samaystay ay noqdaan haa waxaa la yidhi waxaan caafimaad ahayn waa la kala qaadaayo qof kasta markii lagu soo dayay maarag ka horgaarsiin isle kii kale ka horgeynayaa subxaan allah marka laakiin waxaasoo dhan waxaa lagaga gudbi karaa waa caqabad weeyaan caqabadaasna waxaa lagaga gudbi karaa iimaan haa qofka hadduu iimaan le ilaahayna ku xidhan yahay qofkan walaalkiya xataa qofka walaalka ay helo waad u haniyeynaysaa waxaad is leedahay ilaahay baa siiyey kama xumaanaysi maya inaad marka xaasidnimadaa kasi ka baxaysaa waxsiismada tii ahayd horta allah bixiyo adigana wax ima siin kartid adna wax igama qaadi kartid rasiqaada ilaaha ahaaya adna rasiqayga ilaaha ahaaya marka koowaad labaad haddana waxaad ogaanaysaa haddii qofka walaalkaada wax yar kusoo saa-iday ilaahay ha u barakay inaad ahayd waay anna haddii aan magaciisa aan haysanna inaan dhaho ilaah adna isii qofka walaalkana ilaah u saa-iday waa inaad ugu duceysaa laakiin haddaa xaasidnimo meesha soo gasho ama ay soo gasho magaciisa qofka bini-aadamka intaa dhahday allah maasha allah waa kuu kala socotaa waxaa dhan waa kuu magaciisa saana xaaladaada ku sugan tahay allah see gurigaada ku samaysatay see noloshaan ku samaysatay see saan ku heshay haddaa dhahda qofka ku mashquushay adna iimaankaada maalintaas horle loo siibaa ma inay soo saa-id ha sugan weligaada walaalkaada ha ku danaysan walaalkaad xaasti ha ku noqon qofka jaceylka waxaa keenaya labada kalsoonida saaxiibnimada daacadnimada kalsoonida inay imaadaba qofka qof kale wanaajiyo laakiin wadankan waxaan ugu imaanay walaalaheena anagoo xumaan magaciisa inoogu qaadanaynin waxay u bateen dadkii inay magaciisa noqdaan selfish kii la dhahaa waa kuu qoslayaa wuxuu ku wanaajinayo iska kaa dhigaya dhabarku kaa toogana aaday u xun tahay walaalahay haddaad tihiin waxaad samaynaysin wax fiican maahan waa inaad ka tanasuusin gabadh kastayba gabadha walaasha ama saaxiibka ilaahay dartiisa u aamintay cadow ha ku noqon ha xumaynin adigoo daacad ahayd xataa iyada ku xumayso ilaahay baa kaaga qaban kaagana soo jarayso adigoo daacad ahayd haddaa aniga maanta xumaan kugu sameeyo haddana mid kala beri kugu samaysa waa saa hadda wadankan ka socdo adiguna waxaadsidii isagana uu magaciisa cadownimadii dabal u sameynaa isagana laakiin haddii adiga hadduu qofkan soo xumeeyo adna xumaan ha ugu darin hatuusin walaashaada horta hal qof baa adduunya dhan hagaajin kara soo ma bedeli kara hal qof wanaag sameeya haddii qof xumaado qofka kale ku daysan hadduu qofku magaciisa dhibaato dadka u geysana waa inaad wax u sheegi karto wax u sheego anaga waxaan usoo fariisanay wax kale ma ahan inaan walaalahayna wacyigelino oo runta u sheegno oo magaciisa waxa wadankan ka socdo aan realitiga inaan ka hadalno waay xaasadnimada iyo saaxiibka anaga wadankeena markaa waxaan haysanaa saaxiib anaga yaraanteen
saaxiib ahayn ilaa abtina oo saaxiibanahay maasha oo allah isbedelin maasha allah laakiin wadanka waxaa weeye saaxiibta waxay kuu baratay wax kale ma aha waaba inay waa inay uun kabtaad soo gashatidba soo gashatid adna kabaheeda midda kale caasha inaad ila aragtiin kale tulaysaa mooyaane ya inaad ila aragtiin kale mooyaane qurbahan waxaan ku arkay horta saaxiibtinimada uun ma baahane islaan ama oday baa ordayo dukaan buu furanayaa ay qofka dararaf oon qalbigiisaba ku jirin maaragtay baad jaf soo dhigo mid kale ka ag furi intii uu hayay in leeg buu soo dhigi waxaan isiraan waan isweydiiya talo maxaasidnimadii ka mid ta qofkani keligii ma fikiri kara miyaa waxyaaba badan ma isweydiiya programkana uu noo soo socda insha allah waan ka hadli kaas doonaa waa ka hadli doonaa laakiin kan hadda cawada nagu socdo waxaa haysa saaxiibka wadankan aad baan ula iyo yaabaa saaxiibka arrintaas back home maxaa different u dhexeeya insha allah Runta haddii idinkana la hoos isku kusoo sheego, qora waa lahay kasoo hadla jawaabna idinkaa la idinka sugayaa because waxaad wadamadan only ma ahan Canada kaligeed qurbaha markaas soo meelo meesha kasii nin fogtaa kastaba kasii ninka daran kale tahay dhibaatada way haysataa anaga Canada kaligeed ma haysato meel kasta way jooga cadowga oo xaasidka ah oo walaalka magaciisa inuu saaxiib u yahay iska dhigaayo oo inuu lug ka jarmahin wax kale u joogin walaalaha idinkana comment waa kasoo bixin kartiin waana kasoo hadli kartiin waa idin furan tahay anna magaciisa waxaan rabaa dulaahay suun inaan